in uu ka mid noqdo darbijiifka waxa uu ii sheegay in ay ku kaliftay eedadiis oo si xun ula dhaqantay xilliyada Ali Abduqaadir waxaan joogaa degmada Muqdisho waxaan ku noolahay garaawiisanimo darbi ayaan jiiftaa haweenkii nin wax noo qabto male dhaanta ayaan u dhaco sabeen walba korkeen waa dhaanta ku dhaco dad kale guriyashooda isku jiifaan dad wax noo qabanayo male maxaa markii hore kugu kalifay inaad darbijiif noqoto maxaa kugu kalifay inaad darbijiif noqoto hooyo iyo aabbo iyo reerkii dadkaas afkooda jiraan waa kan tagan doosita ani awood eedaligay eedari mar walba ay dileys mamara komunes an waa iska soo tag ama weena isku dhaano lahay darbijiif ay garaawa iska aruuriya adigu ma kamid tahay carruurta ay maandooriyaha isticmaalo maya waad ku cusub tahay maxaad is leedahay inaad noqon doonto habeenkii iyo maalinta ka jiifataa xaafadaada tagtaa inta maxaa hadda ka qabanaysaa maadaama inta badan wiilasha inta ku nool ay yihiin qaar garaab aruuriyo qaar maandooriyo isticmaalo adiga waxaa ku jirtaa waa ku jira hay maxaa isticmaashaa adiga garaaba aruuriya hay hooyo aabbo maxaa kugu kalif garaabina aruurso maxaa kugu kalif garaabina aruurso waxbarasho la'aan kugu kalifta hooyo ma kugu ogtaa marka inaad garaabo aruuriso way kugu ogtahay iyadu ma awoodo miyaa inaad waxbarasho ku geyso maxaa marka codsanaysaa waa inaan nolol qabto codsanaysaa imaadeen oo doonayaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay wax u qabtaan anagu waxaan nahay rag bawrey ciyaalkan yariiska ay u jeedin qaar maxaa ku jiro curyaame qaar maxaa ku jiro waxba aan naasin qaar agoomana ku jiro dawlad degdeg ah maxaa ka codsanaa ciyaalkan saqiirada Soomaaliyeed inay wax u qabtaan sidoo kale waxaan la hadlay mid ka mid ah horjoogayaasha maadaama tiim waliba oo meel iskugu yimaado ay leeyihiin guddi ama gudoomiye waxa uu ii sheegay in uu ka mid yahay dadka ugu macquulsan ee ka mid ah in ay wax cabaan garaabadana ay aruuriyaan waxa uu sheegayaa in dhibaato xoogan ay kala kulmaan xilliyada ay garaabada aruurinayaan iyo cabitaanka koolada kuwaasi oo mararka qaarkood jirdilo ay isku sameeyaan ugu dambeyntii waxa ay dhammaan ay dalbanayaan caruurtaani oo iyagu da'dooda aad u yar yihiin kuwa kale oo ka roonna ay ku jiraan in gargaar markaana iyagu ay istaageeraan maadaama ay iyagu yihiin dad isku jinsiya hiba maxamed nuur Somali Cable Muqdisho.